السلام عليكم. maanta waxaan ka hadli doonaa qiso aad iyo aad cajaa'ibteeda u wadata mudanna in lagu cibro qaato. fadlan inta aan gudagalin qisadan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saarto YouTube-ka, gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha koowaad ee qisadan oo cajaa'ibteeda wadata mudanna in lagu cibro qaato. ayaa waxay dhacday xilligii amiirul muuminiin ninbaa u yimid Cumar bin Khadaab. ninkaasina wuxuu watay wiil yar. Cumar ayaa yiri waxaan arkay maanta wax yaab leh, weligay ma arag nin cunugiisa saan ugu eg yahay. markaasuu yiri ninkii, Cumarow ma ogtahay wiilkan in hooyadiisa ay dhashay iyadoo mid ah? markaasuu Cumar radiyallahu canhu intuu fadhiga bedelay ku yiri, iiga sheeg sidee u dhashay ayadoo meeda. ninkii wuxuu yiri wiilkan isagoo caloosha hooyadiis ku jira ayaa safar isoo galay. markaasay hooyadii tiri, halkee nooga tagaysaa anoo xaamil ah oo dhalay rabo? haddaba markaan albaabka guriga ka baxayay ayaan caloosheeda gacanteyda saaray oo aan ku yiri, ilaahow adigaan kugu ammaanaystay wiilkayga. intaas kadib ayaan safarkii u baxay. markaan safarkii ka soo laabtay ayaan imid gurigii oo xiran. kadibna deriskii ayaa ii sheegeen inay xaaskayga dhimatay. kadibna waxay ii keeneen casho. anoo cashadii cunaya ayaa waxaan arkay qiiq meel ka baxayo. kolkaas ayaan dadkii weydiiyey, waxayna ii sheegeen inuu qiiqaasi yahay qabriga xaaskayga, iyagoo weliba ii sheegay maalintii la aasay ilaa imika uu qiiqaasi ka socdo qabrigeeda. wallaahi inaan dadka oo dhan uga aqoon badanahay inay ahayd qof taqiyad ah, saalixad ah, soom badan oo wixii xun reebta wixiisanna dadka ka saarta ayay ahayd. kolkaas ayaan dadkii ku yiri, soo baxa iraaca aan soo arkee. waan soo baxnay. markaan qabrigii imaanay ayaan ku bilaabay inaan qodno. markaan qodnay misna waxaan aragnay xaaskii oo meed ah oo fadhisa iyo wiilkii oo ag fadhiya. kadib ayaana maqlay cod ileh, kii ammaanada ilaahay u dhiibtayow, qaado ammaanadaada. culimmadu waxay yidhaahdeen hadduu dhihi lahaa, ilaahow wiilkayga iyo hooyadiisa ayaan kugu ammaanaystay, ayadoo nool buu ugu imaan lahaa. laakiin qadar ayuu ahaa inuusan dhihin, oo waqtigeeda ayaa intaa ku ekaa. waxaa halkan noogu eeg oona ku cibro qaadasho mudan qisadii aan hadda idiin soo akhriyey, balse waxaan kula dardaarmayaa mar walbaba shay walbaba aad qabsanaysid alle u tala saaro.